السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا ku xidhan channelka dadweynaha ee YouTube ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta in badan waxaanu aragnaa ambaba se maqalaa dhacdooyin dhacay oo xal loo waayay sida shakhsiyaadkaysta dembiye dil ah iyo wixii la halmaala oo la waayay ambaba se dhacdooyin dhacay oo dadka ka yaabiyey balse tafsiir loo waayay sida caadada ah waxaanu raadinaa ambaba se jecel lahay inaynu dhacdooyinka noocaasi xal iyo jawaab u helo haddaba barnaamijkeena maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa dhacdooyin sannado badan daboola oo ugu dambayn jawaaba loo helay daawasho wacan barnaamijkoo dhammaystiran ku xidhnow janalka dadweynaha sabskaraib saar oo ku soo biir dhacdada ugu horreysa qoyskii John List wuxuu ahaa nin xag jir ah oo ku adkaa diinta Kiristanka. Waxa uu aabe u ahaa 3 caruur, 2 wiil iyo gabadh. Waxayna ku noolaayeen guri ka koobnaa 19 maqsin kuna yaalay dalka Mareykanka gaar ahaan Westfield, New Jersey. Balse sanadku markuu ahaa 1991 dadkii jaarka la ahaa gurigii muddo bil ah waxa ay ka waayeen wax sanqadh ah. Waxa ay waayeen qof soo galaya ambaba se ka baxaya gurigaasi. Intaasi kadib jaarkii waxa ay bilaabeen inay booliska ku wargeliyaan. booliskii ayaa markii uu guriga yimid waxa uu arkay inuu albaabkii guriga xidhnaa balse waxa ay ka dhaceen daaqadihii guriga isla markii ay boolisku gurigii sidaas ugu dhaceen ayaa waxa ay maqleen muusig guriga ka baxaya iyo sidoo kale leedkii guriga oo shidan wax yar markay guriga dhex socdeen ayaa waxa ay arkeen 4 qof oo meyd ah 4tii qof markay fiiriyeen ayaa waxay ogaadeen inay ahaayeen xaaskii John List iyo 3dii caruur ee uu aabaha u ahaa sidoo kale dabaqii saddexaad ee gurigii ayaa markii ay booliska fuuleen waxa ay ka heleen John List hooyadii oo 84 sano jirtay oo ku noolay dabaqa saddexaad ee gurigaasi ayaa iyadna waxa la helay iyadoo meyd ah waxa la arkay inuu dilaago dhulka ka tirtiray dhiigga sidoo kalena meydadka ayuu ka soo jiiday dhinaca madbaxa ambaba se kushiinka oo la aaminsanaa inuu ku dhex toogtay 40 xubnood ee ka koobnaa qoyska sidoo kale waxa la helay baskoolad iyo xaashad ka koobnayd 3 bog oo qoraal ah oo saarnaa miiska warqadan ayaa waxa ku xusnaa cidda dilka geysatay iyo sababta waxa ku qornaa inuu dadkan laayay John List oo ahaa aabaha caruurta waxa uu la sheegay inuu naftooda naarta ka badbaadinayay sidoo kale intaasi waxa uu raaciyay inay Ilaahay ka sii fogaanayeen ficilkaasina haddii uusan ku dhaqaaqi lahayn ay ugu dambayn mutaysan lahaayeen qoyskiisu cadho Ilaahay mustaqbalkana ay noqon lahaayeen daalimin Ilaahay ka fogaatay waxaanu ku muujiyay warqadda inuu ku faraxsanaa maadaama ay qoyskiisu ku dhinteen ayagoo haysta diinta Kiristanka waxaana intaasi ku daray inuu isaga jiray xaalad nafsiyadeed oo muruga ah oo waxa laga eriyay shaqadii uu hayay iyadoo isla markaana arrinkaasi uu ka qariyay qoyskiisa in muddahana waxa uu reerku biilin jiray lacag uu kala bixi jiray xisaabta ay hooyadii ku lahayd bankiga balse John List oo daadiisu ahayd 46 sano booliskii waxa ay waayeen meel uu jaan iyo cirib dhigay muddo kadib ayaa waxa gaarigiisii laga helay garoonka caalamiga ah ee JFK Airport New York balse waxa la waayay raad muujinaya inuu diyaaradda raacay sanado badan ayaa baaday goobkiisii lagu jiray haddaba ninkan ayaa adkaatay in la soo helo muddo 18 sano ah ayaa la waayay aragtidiisana waxa uu dambeysay 18 sano ka hor waxaanu ogsoonahay 18 sano kadib qofka wajigiisa inuu isbedel ku imanayo maadaama isagu marka horeba iska ahaa qof weyn oo da'diisu kor u dhaafaysay ilaa 40ka 18 sano kadib way adkaanaysaa in wajigiisii dib loo soo saaro oo wajigiisii waxa ku imanaya gabo iyo isbedel haddaba sanadku markuu ahaa 1989 18 sano kadib isqarintiisii ayaa TV lagu magacaabi jiray America's Most Wanted oo laga soo tayn jiray dadka dambiyada waaweyn geysta ee la raadinayo ayaa waxay u tageen nin aad ugu takhasusay dhinaca sawirka gacanta ninkan oo qofka u sawiraya hab taala ah ayaa loo tagay waxaana laga codsaday ninkan inuu sawiro 18 sano kadib sida uu wajigiisa u ekaanayo maadaama uu 18 sano maqnaa ninkii ayaa si cajiiba markiiba u sawiray sawirkii ayaa TV-ga laga baahiyay oo la yiri nin noocan u eg haddii la arko hana lagu soo wargeliyo markiiba islaan daawanaysa TV-ga ayaa markay aragtay sawirka waxa maskaxdeeda ku soo dhacay nin ay jaar yihiin oo lagu magacaabo Robert Clark naagtii ayaa wacday oo u sheegtay inuu jiro nin ay jaar yihiin oo laga garan sawirka ninka ay TV-ga ka aragtay ayadoo sheegtay inay wajiga iyo muraayadda amaba si okiyaalada u xidhnaa ay isku mid yihiin intaasi kadib ninkii ayay FBI-du gacanta ku soo dhigeen waxaa la weydiiyey Mr. Clark ma tahay markaas ayuu yidhi haa waan ahay John List miyaa tahay waxa uuna ku jawaabay maya ninkaas anu meehi ee waxaan ahay Robert B. Clark balse baaritaan dheer kadib waxa soo baxday in uu yahay John List ninkii qoyskiisa laayay 18 sano ka hor waxayna suurtagal noqotay ninkaasi in la soo qabto oo gacanta lagu dhigo 18 sano ka bacdi iyadoo uu suurtageliyay sawirka ninkaasi uu sawiray oo ku qiyaasay 18 sano kadib inuu ninkan noocaasi u ekaanayo
dhacdada xigta bal ka waran adigoo ah 17 jir iska faraxsan la nool qoys nabad ah waxbarashadii ay si wacan ugu socoto macallimiintii iyo ardaydu ay si fiican u yaqaanaan loona yaqaano in hebel amaba se in hebel ay hebelaayo dhashay balse ugu dambeyn lagu xaqiijiyo qoyskani aad la nooshahay inaysan ahaynba qoyskaagii dhabta ahaa ee ku dhalay haddaba dhacdo noocaasi ah ayaa ku dhacday gabadhani oo lagu magacaabo Sefeni ayaa waxay ku dhalatay 1997 isbitaal ku yaala magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika 3 maalmood kadib dhalashadeedii gabadhii yareed waxaa isbitaalka ka dhex qaadatay gabadh ku labisanayd diriiska kalkaalisooyinka intaasi kadib waxaa la bilaabay raacdo iyo baadigoob dheer balse waa lagu guul daraystay in la soo helo cunugtii yareed hase ahaatee qoyskii ay ka dhalatay gabadhii yareed ayaa ka quusan waayay mar waliba ayaa waxa ay ka baafin jireen TV-yada iyo idaacadaha intaas waxa dheeraa sanad waliba waxay u sameyn jireen xaflad dhalasho iyagoo aaminsanaa in ay dunida dhinac kaga nooshahay isla markaana ay maalin uun ku soo laaban doonto gurigooda sanadku markuu ahaa 1999 ayaa waxaa looga shakiyay inay gabadha yar xatay naag ku noolayd duleedka magaalada Cape Town naagtan ayaa waxaa lagu arkay ilmo aad ugu ekaa ilmihii TV-yada laga baafinayay ee Sefeni gabadhan jaarkeeda ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in aysan weligood aragba gabadhan ilmahan haysata iyadoo uur ah isla markaana ay si kedis ah u arkeen iyadoo ilmo haysata taasi oo jaarkeedii ku noqotay arrin fajicisa ah intaasi kadib booliskii ayaa naagtii gacanta ku soo dhigay balse baadhid kadib waxa soo baxday in uusan ilmahaasi ahayn ilmihii yaraa ee la waayay ee Sefeni isla markaana uu yahayba wiil dhashayna naagtani jaarkeeduna ay ku qaldameen oo kaliya markale sanadku markuu ahaa 2009 ayaa qoyskan waxa soo wacay shakhsi aan la garanayn waxa uuna u sheegay inuu wax ka og yahay arrinta gabadha yar ee ka maqan qoyskan markii ay qoyskani ka codsadeen inuu sheegana waxa uu ka dalbaday lacag dhan $17,000 Mareykanka ah haddii ay u baahan yihiin inuu siiyo wax faahfaahin ah oo ku saabsan gabadha yar intaasi kadib arrintii ayay isla qaateen waqti iyo goob ay lacagta ugu wareejiyaanna waa ay ku wada ballameen intaasi kadib qoyskii ayaa waxay arrintii la wadaageen booliska ogana warbixiyay shakhsiga soo wacay iyo lacagta uu ku xojeeyay maalintii lagu wada ballamay markii ay gaadhay ayaa lacagtii loo soo qaaday shakhsigii loona dhigay goobtii uu ka codsaday in loo dhigo ayadoo isla markaana ay boolisku isha ku hayeen cidda lacagtaasi qaadan doonta waa la sugay oo la sugay oo la sugay balse waa la waayay cid soo baxda oo lacagtaasi qaadata lama garan ma shakhsi ka ruwaydaysanayay qoyskan ayuu ahaa mise qofkii ayaa waxa uu ogaaday inay dusha kala socdaan boolisku sidaas darteedna uga kaabsaday inuu lacagta qaato balse ugu dambeyn waxaa la ogaaday qofkaasi inuu ahaa gabadh ay reerkan jaar ahaayeen oo doonaysay uun inay qoyskan lacagta ka dhacdo gabadhaasi ayaa la xidhay lana ganaaxay balse gabadhii yarayd weli lama hayo qoyskiina weli kama samrin oo baadigoobkeedii sidii ayay ugu jireen gabadhaasi kadib qoyskii waxaa u soo kordhay 3 carruur oo kale gabadh ayada ku xigtay iyo wiil iyo gabadh kale haddaba gabadhani ayada ku xigtay ayaa markii ay weynaatay waxaa lagu daray iskuulkii ay dhigan jirtay ayaa waxa ay saaxiibo dhab ah oo isjecel ku noqdeen gabadh kale oo ayada xoogay ka yara weynayd labadani gabdhood markay wada socdaan ayaa dadku waxay ku odhan jireen labadiinimo walaalo ayaa tihiin aad ayaad isugu egtihiin waxay ku jawaabi jireen maya anagu saaxiibo ayaanu nahay haddaba gabadhii yareed markay su'aalaha noocaasi ay ku soo noqnoqdeen iyadoo isla markaana ogeydba inay gabadhii ka weyneed ee walaasheed la xaday waxay arrintii oga warbixisay aabaheed una sheegtay inay jirto gabadhay iskuul yihiin oo aad ugu eg gabadhii ayaa markii uu aabaheed arkay markiiba waxa uu dareemay inuu gabadha yar aabbo u yahay waxa uuna codsaday in baadhitaan lagu sameeyo gabadhii kale oo iyada lafteedu shakasanayd maadaama ay su'aalaha noocaasi ay ku soo badbateen gabadha yarna oo ka sheekaysay inay jirto gabadh ka weyn oo la xaday ayaa ogolaatay in DNA-geeda la baadho si loo xaqiijiyo inay gabadhani tahay gabadhoodii yareed ee laga xaday iyo in kale balse markii la baadhay DNA-geedii waxa soo baxday gabadhani inay tahay gabadhii yareed ee Sefeni ee la xaday 17 sano ka hor islaantii gabadha yar soo xadayna 2016 ayaa waxa lagu xukumay 10 sano xadhiga gabadhii ayaa waxa la weydiyay qoyskani wax dhiba miyay ku geysan jireen waxayna ku jawaabtay maya weligay wax dhibay ma geysan nolol caadi ah ayaan isagala noolaa weligayna waxaan aaminsanaa qoyskani inay yihiin qoyskii dhalay aniga labadan dhacdo ee barnaamijkeena ku soo qaadanay oo labaduba ah laba dhacdo oo xaqiiq ah sawirrada aanu isticmaalana ay badankoodu yihiin kuwa dhabta ee dadkeena ka soo sheekaynay ah ayaa ah laba dhacdo oo muddo badan xalloola ah ugu dambeynna ay caddaatay haddii uu tabinta muuqaalkani ku qanciyay ha ka hilmaamin inaad fiidiyoga like saartid ana sii sheergaraysid intaynu barnaamijyada dambe sugimi doonnaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ku xidhnow janalka dadweynaha sabskaraib saar oo ku soo biir barnaamijkeena maantana waxaanu ku soo qaadan doonaa nin aan la garanayn oo la arkay sanadadii 1950 ninka sheekadiisa ayaa waqtigaasi caalamka si weyn ugu dhex baahday iyadoo laga qoray kutubo badan balse ilaa haatan tafsiir sax ah oo dhacda ninkaasi waa lala yahay intaana barnaamijka u gudagelin haddii aad ku cusub tahay ha hilmaamin inaad channelka subscribe saarto sidoo kale videogana like saar